الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ardayda fasalka shanaad habban salaamaya maanta waxaynu dhigan doonaa casharkeennii koowaad gaar ahaan unitka 23 pageka 88 oo macallinkeenii xasan siyaad cilmi oo ina leh Ramadaan Kariim. Unitkeena 23 wuxuu ka hadli doonaa ama uu ciwaankiisu yahay Master Somalis Job Master Somali shaqadiisii ayay noqonaysaa marka. My name is Somali. I was born in Sheikh in 1990. I finished primary school in 1994. I did not pass for money for my secondary school. I have no job and stayed in my uncle's home. He makes bricks and I helped him. It was hard work, but I got a little money. In 1996, with this money, I hired a bicycle. I rode to all the villages near Sheikh and sold vegetables. I did not make much money, and in 1996, I stopped this work. Now I am bicycle repair. I know a lot about bicycle. You only need a few tools, a hammer, some spanner, and a screwdriver. I got a lot of work in Sheikh. Many people have a bicycle. I have saving money and I am going to build a small house. Okay, casharkeen wuxuu ku saabsanaan doonaa Master Somalis Job, Master Somali shaqadiisii. My name is magacaygu Somali. Magacaygu waa Somali. I was born in Sheikh in 1990. Waxaan ku dhashay magaalada Sheikh 1990. I was finished primary school. Waxaan primary-ga dhameeyay ama dugsiga hoose dhameeyay 1994. I did not pass umaan gudbin for my secondary school. Dugsigii sare umaan gudbin. I have no job. Wax shaqo amaan haysan and stayed. Waxaan iska joogay in my uncle home, guriga adeerkay. He makes wuxuu samayn jiray bricks jaajuurada and I helped him. Waanan caawin jiray. It was waxay ahayd hard work, shaqo adag bay ahayd, but laakiin I got waxaan ka heli jiray a little money. Lacag yar baan ka heli jiray. In 1996, 1996, with this money, 1996 with this money, lacagtaas I hired waxaan ku kireystay a bicycle baan ku kireystay. I rode waan raaci jiray to all the villages dhammaan tuulooyinka near u dhow Sheikh, magaalada Sheikh u dhow, and sold waxaanan iibin jiray vegetables. Waxaan iibin jiray khudaar baan iibin jiray. I did not make kamaan heli jirin much money lacag fara badan. Haddaba in 1996 I stopped waan joojiyay this work shaqada waan joojiyay. Now hadda I am a bicycle repairer. Waxaan ahay bicycle hagaajiye ama qofka bicycle ka shaqeeya. I know waan garanayaa a lot about bicycle. waxyaabo badan oo bicycle ku saabsan ama shaqooyin badan oo bicycle laga qaban karo. You only need waxaad u baahan tahay few tools. qalab yar baad u baahan tahay, qalab aan sawsi badnayn baad u baahan tahay mar haddii aad tahay bicycle repair haddaad tahay. waxaan u baahanahay hammer, dube, some spanners, waxoogaa baanada, screwdriver, bodal. I got a lot of work. Waxaan ka heli jiray shaqooyin fara badan in Sheikh, magaalada Sheikh. Many people dadka badankoodu have a bicycle. Waxay lahaayeen bicycle. I am anigu saving waxaan save karaystay money lacag and I am going to waxaan doonayaa build inaan dhisto a small house, guri yar inaan dhisto. Hadda waxaa lagu yiri answer ka jawaab this question is su'aalahan ka jawaab. How old is Somali? Somali waa imise jir? Does he get a lot of work? Does he get ma wuxuu helay a lot of work? Shaqooyin fara badan miyuu helay? Did he go to secondary school? Secondary school miyuu gudbay? What is his uncle job? Maxay ahayd shaqada adeerkii? What is he going to do? Wuxuu doonayay inuu qabto with his morning. Aroortii muxuu qaban jiray? What was Somali's job? Shaqadiisii hore maxay ahayd Somali? Shaqadii hore aan soo sheegnay waxay jirtay shaqo hore uu qaban jiray. Shaqada hore
maxay ahayd markaa? How many years? Imise sano did he sell vegetables? Imise sano ayuu khudaarta iibinayay? What is Somali is job now? Shaqada uu Somali hadda qabtaa maxay tahay? Su'aalahaas aad ardayda kasoo jawaabi doontiin, waad ii soo gudbin doontiin insha Allah. Salaasada ayaad ii soo gudbin doontaa, walibana iskuulka ayaad iigu keeni doontaa. Waayahay, halkan ogeysiis baan kugu qoray. Ogeysiiskaasi waxa uu ku leeyahay you will write your book. Waxaad ku qori doontaa buuggaaga ayaad exercise ku qori doontaa. Is not allowed. Lama ogolaan doono to write a letter. Inaad waraaqad intaad kusoo qorto adiga lama ogolaan doono, laakiinse waxaad kusoo qori doontaa buuggaaga ayaad kusoo qori doontaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.